dadweyne fara badan oo wanaag la jecel madaxweynaha galmudug ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga ku soo dhaweeyay madaxweynaha guulaha badan ka soo hooyay siyaasadda Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo safarkiisii ugu horeeyay ee dibadda ah doorashadiisii kadib ku yimid wadanka Turkiga. dadweynaha soo dhaweeyay Qoorqoor ayaa aad ugu faraxsanaa in mar uun ay arkaan madaxweynaha galmudug oo soo dhaweyntiisa ay u yimaadeen halkan saacado badan ka hor soo degistiisa. safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya Turkiga, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga, dad ka soo jeeda deegaanada galmudug, siyaasiyiin, odayaal dhaqan iyo dadweyne kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda soo dhaweynta madaxweyne Qoorqoor. warbaahinta waxaa la hadlay safiir Jaamac Ciidid oo dowladda Soomaaliya matalayay, waxaana uu sheegay in jacaylka loo qabo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha galmudug ay ka turjumayso dadkan faraha badan ee garoonka yimid, isagoo sheegay in goor sii horeysaba halkan ay u yimaadeen in ay soo dhaweeyaan madaxweynaha galmudug. waxaan ku soo dhaweynay magaalada Istanbul safaaradii iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga degan oo meelo badan isaga yimi, magaalooyinka dalka Turkiga oo dhan isaga yimi. waxaan ku soo dhaweynay wafdigii hogaaminayay madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdigii hogaaminayay oo si nabada ku yimid dalka Turkiga. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aanu madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweyno dalkan Turkiga. runtii xamaasad badan baa ka muuqata dadweynaha ka soo qayb galay soo dhaweynta. xalay oo dhan waa la soo jeeday, iminka salaada subax baan tukanaynaa oo diyaaraddu iminka timi. waxaa ka muuqata madaxweyne ku soo dhawow dalka Turkiga, adiga iyo wafdigaaguba waad aragtaa dadkaagu siday ku jecel yihiin. waa markhaatimo doonto maanta. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waa waqti dambe waad soo daasheen. waxaan idin rajaynayaa safarkiinu inuu guulaysto. dadweynihii soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ka qaybgalkooda soo dhaweynta madaxweyne Qoorqoor. anigoo ku hadlayo magacayga Cabdullaahi Cadceed Rooble, ahna jaaliyadda degan Finland, kuna hadlaya magaca jaaliyadaha degan qurbaha. waxaan halkan ku soo dhaweynay oo muddo oo aan sugaynay madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. waxaanu leenahay madaxweyne soo dhawaaw, ku soo dhawaaw qalbi furan, ku soo dhawaaw dadku jecel iyo jaaliyad ku jecel oo halkan kugu soo dhaweynayso. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta annagoo ah jaaliyadda Turkiga iyo jaaliyadaha qurbaha ka kooban aan si wanaagsan ku soo dhaweynay. ku soo dhawow anoo salaan kaaga wada jaaliyadda guud ee degan wadanka Turkiga oo runtii ka kala yimid maanta gobollo kala duwan. saacadda la joogo oo waqti dambe ah si ay madaxweyne ku soo dhaweeyaan oo maartay darta ay u soo baxeen. marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay safarkaaga gaaban ee aad ku soo gaartay wadanka Turkiga. madaxweyne ku soo dhawow gacmo furan, ku soo dhawow qalbi furan. madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa soo dhaweynta diiran ee dadweynaha iyo mas'uuliyiintaba kaga mahad celiyay, isagoo Soomaalida Turkiga iyo mas'uuliyiintaba u sheegay inuu la qaadan doono kulamo uu kaga arinsanayo aayaha deegaanada uu matalo ee galmudug. madaxda safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Turkiga oo hogaaminayo safiirka safaaradda, jaaliyadda sharafta leh qaybada kala duwan oo ganacsato iyo ardo iyo mas'uuliyiin kale intaba isugu jira. dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan sida qiimaha badan lagu soo dhaweyseen, waxaan leenahay aroor wanaagsan, subax wanaagsan. waa mahadsantihiin. waxaan kaga mahad celinaynaa sida diiran sharafta leh walaalnimada ka muuqato nagu soo dhaweyseen magaalada Istanbul. waxaan runtii ognahay inaad waqti badan soo jeedeen, xilligii la jiifan lahaa habeennimada ahayd, darteena usoo safarteen oo usoo aadeen airboortka oo u jira masaafo dheer. aan ognahay inuu magaalada u jiro. aad iyo aad baan runtii noo farxad gelinaysaa sida aad noogu taagneedeen oo noo sugayseen. waana mahad ballaaran baan idinka celinaynaa. waa ilaahay mahadiis, waa idiin nabad nimid, waa isu nimid. safar gaaban baan halkaan ku soo gaarnay magaalada Istanbul.
waddanka turkiga oo safar shaqo ah oo aad qayb ka tihiin oo taladiinna iyo tilmaamihiinna aad ku leedihiin oo dadka aanaan uga maarmin aad ka mid tihiin idinka iyo mas-uuliyiintiinna dhammaan iyo safaaradda waan wada joognaa baryahaanu joogaynaa insha allah baryahaasna talooyinkii iyo howlihii muhiimka ahaa ee ay tahay inay soomaaliya guud ahaan iska waraysato ayaanu iska waraysan doonnaa idin xog warrami doonnaa idinkuna taageeradiinna iyo talooyinkiina noo soo gudbi doontaan aad iyo aad waa mahadsantihiin asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu safarka madaxweyne qoorqoor ayaa rajo iyo iftiimin hor leh waxa uu u yahay reer galmudug iyo dekedda Hobyo oo dhismaheeda uu hortabin u leeyahay galmudug waa Cali Aadan Muumin.